Ma ogtahay in hadda in ka badan 2,000 oo maraakiib ah iyo in ka badan 20,000 oo badmaaxayaal ah ay ku xaniban yihiin gudaha gacanka Faris sababo la xiriira xilitaanka marinbiyoodka Hormuz. Arrintan ayaana ka mid ah sababaha Mareykanku ugu dhawaaqeen inay bilaabayaan howlgal ballaaran oo loo bixiyay Project Freedom oo ka dhan ah Iran si dib loogu furo Hormuz. Hadda waxaa socda wada hadallo nabadeed, howlgalkaasna si ku meel gaar ah ayaa loo hakiyay. Si kastaba ha ahaatee, Mareykanku waa uu sii wadi doonaa haddii aan heshiis la gaadhin. wararka ayaa sheegaya in shaqaalihii maraakiibta ay ku xanibnaa gacanku ay dareemayaan in cuntadu ku yaraanayso iyo biyaha nadiifka ahi. Sida lagu sheegay warbixinaha howlgalka waxaa ka qayb qaadan kara in ka badan 100 diyaaradood oo dagaal ah, daraasiin helikabtar ah, in ka badan 15,000 oo askari oo Mareykan ah, maraakiibta burburiya, gantaalada hagta iyo cutubyo miinooyinka badda ka saara ama nadiifiya. Howlgalka ujeedadiisu waxay ahaan lahayd mid fudud in maraakiibta laga geliyo marinbiyoodka, in la ogaado miinooyinka badda, in laga qabto bartilmaameedyada soo socda iyo in la ilaaliyo socodka ganacsiga maraakiibta caalamiga ah. laakiin ma aha mid sida ay u muuqato u fudud, sababtoo ah Iran waxay gacanta ku haysaa dhammaan xeebta koonfureed ee gacanka Faris, sidoo kalena waxay leedahay tiro badan oo doonyo yaryar ah oo aan ciidina wadin iyo diyaarado drones ah. taas ayaana howlgalka ka dhigi kara mid aad ugu adag Mareykanka, waxaana halis geli kara nolosha dad badan. Mar rabtaa inaad baratid xirfadaha online-ka lagaga shaqaysto income iyo dhaqaale aad ka samaysid online-ka. Haddii aad u baahan tahay inaad barato xirfadaha AI-da, freelancing-ka, affiliate marketing-ka, cryptocurrency iyo digital products-ka sida loo sameeyo online-kana loogu iibiyo, iyo xirfadda e-commerce-ga, waxaan ku haynaa e-books si tafatiran kuugu sharxaya kuna baraya kuna siinaya siraha xirfadahaas online-ka loogaga shaqaysto. Kaliya WhatsApp-ka iga soo weydii buugaagtaas, halkaas ayaana kuugu soo diri doonaa. igala soo hadal nambarka WhatsApp-ka aan dhigi doono commentiga.